خير كي دوكسية دكتين تعليم تيدادية دكتور ما نقبحين دروغا ماشينا magaalada Burco waa caasimada labaad ee dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku nool kumanaan dhalinyaro ah kuwaas oo inta ugu badani aanay haysan haba yaraatee wax shaqo ah waxaana shaqo la'aantani dhalinta qaarkood ku kaliftay inay tahriibaan oo ay ku madhaan badda ila tareenka ama ay saxaraha Liibiya halka qaarkood ay yihiin kuwa la darsay mukhadaraadka kala duwan haddaba darbijiifka ku dhaqan magaalada Burco ayaa la macaamilay mukhadaraadka sida xabagta oo iyagu haysan wax hoy ah oo ay ka galaan dhaxanta roobka bacadka iyagoo darbijiifkani hoygooda rasmiga uu yahay darbiyada magaaladani Burco hase ahaatee waxaa jiro goobo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo darbijiifka lamana garan karo ilaa hadda waxa ay kaga mashquulsan yihiin darbijiifka ku dhaqan magaalada Burco oo haatan ay la soo daristay xaalad adag oo ku wajahan dhanka nolosha ay ku nool yihiin marka ay indhahaagu qabtaan una baahan gargaar bini'aadantinimo iyadoo lagu jiro bishii barakaysnayd Ramadaan waxaanay darbijiifkani adeegsadaan hal ku dhigyo ah khayrkay dugsiye dhigteen tacliintay daadiyeen digtuun baa naga bixin daroogan weheshana darbijiifka magaalada Burco ayaa iyagu ugu dambeyntii baaq u diray madaxweynaha dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay ugu baaqaneen sida ugu dhaqsiyaha badan leh uu gacan siiyo darbijiifka ku dhaqan magaalada Burco loona sameeyo dugsiyo boodhina ah waxbarasho iyo waliba shaqo abuur ku wajahan jahaynta dhalinta gobolkani Togdheer waxaan ku codsanayaa in waxna loo qabto yaa khayrkay dugsiye dhigteen tacliintay daadiyeen digtuun ma naga bixin daroga weeshana shaqada soo bira amarkay dhigayso waxaan doonaynaa in madaxweynuhu gacan siiyo iskuulo bandaraan noo furo oo aan ka codsano codsana la siiyo darbijiifna la siiyo oo shaqan aan waxna loo qabtaan doonayna oo waxna gaan la siiyo nimankaasaan xarabintay darbijiif ay gidaarada waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa xaqamada sida iskuulo bandaraan loo furo magacayga waxa la Saciid Yuusuf Maxamuud waxaan abiyay xabagta baan ku oran ilaa labadii kuriyo waxaan abiyay tabka kugu xidhay qaar baan dab loo shidin dib jirkoodii baa waran tarbiyada u jiifan dan hadday ku moodaan daacad ugu tali waa barwaaqo aadan maxmed shabakada caalamiga Wadweyne News magaalada Burco.